qaar ka mid ah cuqaasha iyo dhalinyarada qaybaha kala duwan ee ku dhaqan magaala ganacsiyeedka degmadaasi Togwajaale oo maanta la hadlayay telefishinka caalamiga ee Somni News TV ayaa waxay ka maqraati kaceen waxqabadka la taaban kara ee ku kacay muddada uu xilka hayay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Yuusuf Maxamed Cabdi cuqaashan ayaa sidoo kale waxay xuseen in wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland uu yahay wasiirka kaliya ee ugu firfircoon xukuumadda Mudane Muuse Biixi Cabdi sidoo kale waxay xuseen in wasiirku badiba uu shaqaalaysiiyay dhalinyarada iyo aqoonyahankii kala duwan ee ka soo baxay jaamacadaha dalka cuqaasha iyo dhalinyaradan oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa kamid ah hadaladoodii sheegayna wasiirka wasaaradda maaliyadda muddadii yareed uu joogay inuu horumar badan ka gaadhay gobolka oo wasaaraddii maaliyadda istaba jiidanaysay ee dhaqaale darradu haysay waxba maanta ay degan tahay waddankii wasaaradda maaliyadda aad iyo aad baan ugu hambaleynaynaa ninka wanaagsan ee loo soo magacaabay ee dejiyey waddankii oo dhan wax hadal hay iyo wax istaba guuxay iyo waxba aanay jirin shaqaalihii uu sida fiican u kala bedelay uu nidaamiyay ninka aad iyo aad baan soo dhaweynaa halkan waxaan ka marqaati kacayaa anigoo odayada degmada Togwajaale ka mid ah waxqabadkii baaxadda lahaa oo ku tallaabsaday wasiirka maaliyadda Somaliland iyo dakhli ururintii ballaarnayd uu sameeyay ayaan ku hambalyeynaya oo ka marqaati kacaya inta kadib waxaan leeyahay ha sii jiraan leeyahay wasiirkan oo Somaliland u dhalatay ayuu shaqaalaysiiyay oo bila camal ah gidaarada joogay dakhligii miisaaniyadana kor buu qaaday sidaa kadib waxaan leeyahay wasiirka maaliyaddu hawshiisa hasii wataan leeyahay wasiirka wasaaradda Somaliland Mudane Yuusuf oo ah wasiirka horumarinta maaliyadda aqoon badan oo leh arrimaha dakhliga iyo maaliyadda wasiirku wuxuu muddadii 6 bilood ahayd oo joogay uu qabtay wax la taaban karo taas oo ka tahay dardargelinta hawlaha dakhliga sida cashuuraha bariga iyo waaxda kastamada inta kadib wasiirku wuxuu shaqo abuur u sameeyay dhalinyaro badan oo dalka joogtay oo kala duwan kuwaas oo shaqo geliyay wasiirku muddadii uu meesha ku sugnaa wasaaradda maaliyadda oo wasiirka ka ahaa wax badan oo la taaban karo oo lagu dirsado ayuu qarankan u qabtay ayaan oran karnaa kale oo uu qabtay isagoo oo shaqada u leh khibrad dheer kana soo shaqeynayay wasaaradda maaliyadda muddo badan aqoonteedina leh Umar Xasan Caalin waxqabadka oo muuqda oo ka hirgeliyay kastanka waxaan aad ugu amaanaynaa wasiirka maaliyadda shaqaalaha hufan ee uu soo xulay kastanka kala baydh oo ugu horeeyo Umar Xasan Caalin haddaan nahay dhalinyarada degmada Togwajaale aad baan u soo dhaw Umar Xasan Caalin waliba waxyaabaha uu aadka ugu mudan yahay oo ku amaanayay waxa kamid ah maamul wanaaga iyo hufnaanta oo shaqaalaha kastamka kala baydh sida ay isku la jaan qaadeen iyo sida ay hufnaanta ay u amaanayeen dadkii ganacsatada qaadka cashuuranayay marka xukuumadda 6 bilood jirtay maanta ka shaqeynaya xukuumadda maaliyadda wasiirku halkuu gaarsiiyay maanta horumarka 6 bilood ku salaysan heer ay weligeed gaadhay Somaliland maaha wanaaga annaguna waan ku hambalyeynaa hambalya baanu leenahay waan ku soo amaanaynaa haddaan nahay magaalada Togwajaale odayaasheeda aan ka mid nahay hadallaan ugu soo jeedinaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Somaliland oo muddadii koobnayd uu hayay dakhliga aad u kordhiyay haddii ay noqoto kastamada haddii ay noqoto cashuuraha bariga waxaan leenahay markaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne waxaad waa inaad keentaa oo kale sida wasiirka wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Somaliland oo kale nin karti iyo aqoon لا وين كانت أدبان ذو ما سنتين مدحونا جمهورية الصوماليلان سيدا وزيرك وزارة جمهورية الصوماليلان أدو كانتي حكى عقف لنا أدو وزير هذا كلنا أحمد جدي كمل أحد يلا تقول شالة أنا كان أستاذ تقول شالة نحن آديات
ugu faraxsannahay uguna qanacsannahay sida fiican ee wasiirka wasaaradda maaliyadda Mr. Yuusuf uu wado ilaa iyo hadda xilka loo dhiibay iyo mas'uuliyadiisa sida uu gudanayo sida uu dakhligii kor ugu soo qaaday sida uu isku shaandhaynta ugu sameeyay kastamadii iyo meelihii dakhligu ka soo baxayay oo hab nidaameedkeedu ka duwan yahay sidii hore haatana maalin kasta dakhliga la xereeyo aanu dakhliyo hoyan nidaam fiican iyo protocol fiican ka muuqdo waxa kale oo aad iyo aad soo dhaweynaa sida uu u shaqaaleysiiyay ama ay uga hawlgaleen aqoonyahankii iyo ardaydii jaamacaduhu runaantii haddaan nahay degmada Reebo Jaale iyo dhalinyartii ganacsatada ku dhaqan aad baan u soo dhaweynaa Khadar Cabdillaahi telefishinka caalamiga ee Som News TV magaala ganacsiyeedka degmadaasi Togwa Jaale